Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ernesto Valverde ayaa shaaca ka qaaday liiska xidigaha kaga qaybgalaya kulanka lugta koowaad ee wareegga 16 Copa del Rey ee caawa u safri doonaan dhigooda Levante. Waxaa liiskan uu ku dhawaaqay tababare Valverde ka maqan xidigo waaweyn sida Lionel Messi, Luis Alberto Suarez, Ivan Rakitic iyo weliba Gerard Pique. halka xidigaha Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti, Rafinha Alcantara ay kulankan ka maqan yihiin sabab la xiriira dhaawacyo kala duwan ee ka qabaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona. sidoo kale Munir El Haddadi Mohamed ayaa looga reebay liiskan sabab farsamo. Haddaba aynu eegno xidigaha uu soo xushay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulan ciyaareedka xiisaha badan ee Levante caawa la ciyaarayaan. Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Sergio Busquets, Denis Suarez, Coutinho, Arturo Melo, Ousmane Dembele, Jasper Cillessen, Malcolm, Clement Lenglet, Murillo, Sergio Roberto Aliena, Vidal, Miranda, Ricky ciyaaraanka lagu magacaabo Jumi iyo weliba Wag ciyaaraanka lagu magacaabo ayuu u soo xushay liiska xidigaha caawa u ciyaari kara kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulanka ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Levante.